كان هذا الكيد ضعيف أي نقطة مركز لانتي ديردي دون تكودكتي مركز وعا كسو أوري هاتشا كساما ديق أيا كسو أوري إندها أيا تاج مكانا مركز ديبو إيكتي إندها مدو إسلانتا دير إندها إسلانتا كان waxay ka dhaxaragtay Michi oo markaas subaxii kuranaysa markaas ay markii ugu horeysay ay si fiican u aragtay inta dhimatay kadib markaas ay xoogaatay in saaxiibteedu xiistay waxay aragtay Michi oo eegaysa markaasna ku qoslaysa wax ay kaana markaa u sheegtay ayadoo taagan Michi ayaa waxa gadaasheeda soo istaagay nin aad u dheer markaasna Michi katiinadii qabtay ayuu qabtay wuxuuna bilaabay inuu gadaal u jiido kaanana markaas waxay daraacday inay qabato saaxiibteed laakiin nasiib darro way qaban weysay ma xasuusataa waxaad samaysay Hachisha Kusama ayaa dhegteeda ugu sheegtay waa inaad dambiyada gashay lagaa jaraa waa inaad ku laabataa cadaabta meesha aad u qalantid kaana way la yaabaneed markay aragtidaas ku aragtay Hachisha Kusama indhaheeda markay aragtay Michi oo meesha taagan qalbigeeda ayaa u xanuunay markaasna waxay garatay sababtii maalinkaas cadaabta loogu diray odaygii gaabna ayaa wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo dhaho gabadha ka fog markaasna wuxuu weyn islaanta dheer soo eegto laakiin hal mar kaliya ay soo eegtay islaanta dheer markaasna intay qosashay ay kasii jeesatay kaanana neefta ayay ku dhagneed iyadoo neefta ku dhagan tahay ayay kaana waxay aragtay odaygii oo markaa ka labalabaynaya inuu xawiyo in kale xoogaa kadibna waxay aragtay soo gadaal u baxay oo kasii jeestay markaas waxay garatay inuu rabo inuu ka tago indhaheeda ayaa waxay bilaabay inay bilibiliglayaan kadibna waxay maqashay wax la akhrinayo codkaas degdeg ayuu wax ku akhrinayay iyo si tartiibaba kadibna kaana waxay aragtay nalal yar oo agteeda ka bilibiliglaynaya markaasna waxay maqashay ciyaal yarira oo qoslaya kuwaasoo ay farxad ka muuqatay kaana waxay u malaysay inay waxaasoo dhan ay iyada u malaynaysay laakiin xoogaa kadib waxay dareentay iyadoo islaantii hoos u dhigayso isla markiina islaantii dheereed waxay u carartay dhinaca kaynta kaana marar badan ayay indhaha bili ka siisay iyadoo garan la waxa meesha ka dhacayba xoogaa kadib waxay maqashay odaygii hadlay waa miraaj ayuu dhahay waxaana waxa weeye si xiraan ku sii daayay ma jirto waxay ka jeceshahay islaantan dheer inay aragto ciyaal yarira oo faraxsan oo meelaha yaacaya kaana dhunteeda xanuunaysa ayay markaa ku dhigtay waxayna sii eegaysay Hachisha Kusama oo markaas aad iyo aad uga sii fogaanaysa odaygii dheer ayaa waxa ku dhahay xoogaa waqti way sii jeesan doontaa laakiin ma ogi markay soo laaban doonto way mashquulsanaanaysaa laakiin markii uu sixirka ka dhamaado way kuu soo laaban doontaa idnana ma celin doonto mar labaad ayay ii soo laabanaysaa ayay weydiisay kaana iyadoo xanaaqsan oo dhulka ka kacday markaasna waxay bilowday inay boorka iska jafto adigoo isticmaalaya sixirkaaga meel kuma xiri kartid miya odayga cajuuska markaa wuu xanaaqay markaasna wuxuu ku yidhi waxaa tahay qof bilaa abaala markaas waxay ku tiri waa su'aal kaliya ayaan si kaa weydiinayay markaas wuxuu yidhi haddii aan awoodo mar hore ayaan xiri lahaa kaana odaygii ayay gadaal u eegtay ayadoo markaas yaaban odaygu wuxuu bilaabay inuu mar labaad socdo laakiin kaana markaas ma isa soo dabagelin run ayay ahayd inuu kaana markaa badbaadiyey laakiin kaana waxay dareemaysay inuu wax ka qarinayo odaygii ayaa istaagay wuxuuna yidhi ma soo socotaa asagoo sabirkii kasii dhammaanayo kaana meeshii taagneed kamay dhaqaaqin maxaa ii caawinaysaa ayay markaa odaygii weydiisay odaygiina wuxuu ku jawaabay sababtoo waa u baahan tahay isagoon dib u soo eegin kaana weli jawaabtaas kumay qancin odagan weyn wuxuu kasoo badbaadiyey cadaabta wuxuuna sidoo kale ka badbaadiyey yokai lagama yaabo inuu waxaasuu silaca u mari lahaa qofuusa aqoon waxaa laga yaabaa inuu wax u baahan yahay kaanana way dareemaysay laakiin ma aysa ogeen wuxuu markaa iyada ka rabo xagee u soconnaa ayay markaa weydiisay odaygii weynaana uu soo laabtay isagoo markaasay ka yeeriso sharqantii digsiyaasha isku garaacayay wuxuu yidhi ma aqaani laakiin marka hore waa inaan qarinaa calaamada gacantaada ku taala si ay yokaa dambe kusoo weerarin fikrad ayaana hayaa markaas waxaa u baahanaya inaan hooyaday arko ayay kaana markaas tiri iyadoo xanaaqsan wejigeeda dhan xanaaq ayaa ka muuqday ma taqaano sababta laakiin si u joogtaba waxay dareentay inay wax qaldan yihiin markaas kaana dhinaceeda ayay u jeesatay waxayna bilowday markaas inay u lugayso dhinacuu gurigeeda ka xigay taasi mid kuu fiican ma aha ayuu odagaa markay yidhi markaas xoogaa siduu u aamusnaa ayuu xoogaa kadib hadlay wuxuuna yidhi haye waayaha waan kuu raacaya dhinaca gurigaaga kaana odaygii ayay dib u soo eegtay waxayna bilowday inay ku fikirto wakaasaa haddana wuxuu rabaa inuu i raaco waxay ogeed kaana inay hooyadeed rabto inay aragto laakiin sidoo kale waxay ogeed odagan inuusan bilaash rabin inuu iska raaco waxaa laga yaabaa inuu xooga baahan yahay ama waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu isticmaalo laakiin waxaa loo baahan yahay inay ka taxadirto isaga
Toshihiro wuxuu ahaan jiray nin aad u awood badan. Asagoo yar ayuu boqor noqday, isla markiina waa loo guuriyay si isla markiiba caruur u dhalo. Wuxuu sidoo kale lahaan jiray niban asaga u daacad ah oo amar kasta uu bixiyo raaci jiray. Marnaba muuse qiyaamin dadka kalsoonida ay ku qabeen. Wuxuuna markaas meeshiisa ku xukumi jiray gacan adag, sidoo kalena naxariis. Dadku markaas way jeclaayeen. Wuxuuna mar walba u doodi jiray xaq ay dadka ku leeyihiin. Xaaskiisu waxay mid daacad oo jacayl badan, laakiin markii ay dhashay cunugoodii saddexaad, markaas way umur raacday oo ka dhimatay. Toshihiro isku mudayn inuu mar kale guursado. Wuxuuna xoogiisa dhan markaas saaray inuu markaas saddexdiisii wiil tacliin aad u heersareysa uu baro. Markaasna wuxuu isku dayay inay kibirka ay iska ilaaliyaan. Laakiin ciyaalkii markay bilaabeen inay koraan, wuxuu arkay cunugiisii ugu yaraa Akihito inuu u qaaday jacayl aad u tiro badan sixirka madow. Toshihiro markaas isagu wuxuu ka yimid reer markaasuu dhiigooda sixirka ku jiro, laakiin marnaba Toshihiro sixirkaas ma isticmaalin. Sababta wuxuu ogaa sixirku ama ha fiicnaado ama ha xumaado inuu mar walba dhibaatooyin leeyahay, balse waxaa jirtay inuu wiilkiisii Akihito uu mar ogaaday inuu leeyahay sixirada midka ugu awooda badan. Wuxuuna bilaabay inuu markaas isticmaalo, laakiin wax fiican umuusa isticmaalin. awoodiisaas wuxuu ku abuuskarin jiray xayawaanka iyo cayayaanka. Marmarka qaar xataa wuxuu adeegsan jiray shaqaalaha asagoo jirkooda ku kala jarjaraya. Inkasta uu ballan qaaday inuusan awoodiisa adeegsan, Toshihiro wuxuu maalin maalmaha ka mid ah ku qasbanaaday inuu awoodiisa ku badbaadiyo wiilkiisa ugu weynaa, kaas oo markaas dabaqa kasoo tuuray walaalkiisii yaraa. Toshihiro markaas uu ciqaabay Akihito, wuxuuna ku qasbay inuu ballan qaado inuu mar dambe uusan sixirkiisa isticmaalin. Akihito uu ballan qaaday, laakiin waxaasoo dhan waxay ahaayeen beentiis. Toshihiro markaas wuxuu aaday mamlakad kale si ay ugala sheekaystaan badeecadii ay kala bedelan lahaayeen. Markii uu bil kadib soo laabtay, wuxuu u soo laabtay qasrigii oo dhan ay ka buuxaan meyd, kulligoodna ay yihiin shaqaalihii. Labadiisii wiil oo waaweynaana ay markaas ku jiraan, kulligoodna dhiigooda ay dhex qabanayaan. Markii uu carshiga dhinaciisa eegay, wuxuu arkay wiilkiisii ugu yaraa Akihito oo carshiga ku fadhiya, asagoo farihiisa dhiigga ka leefaya. Agtiisana waxaa istaagnaa nin dhar madow qabay. Ugu dambeyn waa timid, ayuu yidhi Akihito, anigee Jiro waa ku sugaynay. Markaas Toshihiro wuxuu bilaabay inuu u yeero ciidankiisii, markaas la socday hal mid, laakiinse xataa umuusan iman. Intii adeegiisa meydka ayaa ninkana wuxuu markaas sixray ciidankaagii. Hadda keligii ayay amriga qaadanayaan. Toshihiro ayaa hore u soo dhaqaaqay. Maxaa waxaan oo dhan laga wadaa ayuu dhahay. Ma adiga ayaa walaalaha dilay, mise adiga ayaa ummadan oo dhan laayay? Adiga ka kac dhaqso carshigayga, sababtoo umaadan shaqaysan. Laakiin waa u shaqaystay, ayuu yidhi Akihito. Waxaan dilay qof kasta oo carshigayga hor istaagi lahaa. Kulligoodna hadda waa meyd, adiga kaliya ayaa dhiman odayo cajuuska ah. Toshihiro wuu xanaaqay. Aniga waxaan ballan qaaday inaan weligay isticmaalin awoodeyda, laakiin waxaan ku qasbanay inaan ballankaas jabiyo. Ninkii dharka madoobaa qabay ayaa Toshihiro hortiisa hor istaagay, wuxuuna markaa ku soo daayay kubad dab ah. Toshihiro markiiba wuxuu bilaabay inuu sixirkiisa isticmaalo, isagoo kubadiiba burburiyay. Akihito ayaa markiiba kacay asagoo naxsan, wuxuuna bilaabay inuu xanaaqo. Wuxuu eegay aabihiis iyo sixiroolihii uu meesha keensaday. Jiro, dhaqso dil, waa amar. Markaasna aabihiis ayaa eegay, wuxuuna ku dhahay, aniga anaa ka xoog badan ninkan. Markaasna wuxuu bilaabay inuu sixirkiisa isticmaalo. Gacantiisa ayuu wareejiyay, taasoo ku sababtay inuu odagii jabo oo dhulka ku dhaco. Akihito cabsi ayaa gashay, wuxuuna bilaabay inuu dhaho jooji, laakiin aabihiis wuxuu yidhi, aniga waxaan oo dhan ma bilaabin. Mana rabin nolosheeda inta ka dhiman inaan sixirkayga isticmaalo si aan qof xanuun u gaarsiiyo, balse adiga ayaa igu qasbay. Walaalaha ayaana dishay, waxaanad bilowday inaad qaadatid carshigayga. Aniga ayaa carshiga leh, aniga ayaana xaakimka ah. Akihito uu ka xanaaqay ereyada uu dhahay aabihiis, wuxuuna bilaabay markaas inuu sixirkiisa isticmaalo. Wuxuuna ku dhahay, Jiro, istaag, dhaqso sixirka ila samee. Markiiba Jiro isagoo xanuun aad u badan lugtiisa ka dareemaya ayuu bilaabay inuu sixirkiisa sameeyo, laakiin Toshihiro ayaa darbiga ku dhuftay, dhulka ayuuna ku dhacay. Ugu dambeynse wuu soo kacay, wuxuuna bilaabay inuu sixirkiisa isticmaalo. asagoo xanuun dareemaya ayuu awoodiisa isticmaalayay. Markaasna Toshihiro sixir wuxuu isticmaalayay ka ilaaliso midaas, laakiin sixirkii wiilkiisa ayaa ku dhacay, taasoo markiiba u fududeysay saaxirka inuu awoodiisa dib u soo ceshto. Wuxuuna bilaabay markaas Toshihiro inuu dareemo xanuun aad u badan iyo jirkiisa oo daciifaya. Jiro wuxuu sii watay awoodiisii, kadibna Toshihiro wuxuu isticmaalay intii ugu dambeysay sixirkiisa si uu cunugiisa meesha uga leexiyo. Markaa kadibna awoodii dhan ayaa isla qaraxday xoog darteed. Toshihiro indhaha ayuu kala qaaday,
weli muusa dhiman laakiin wax weyn ayaa khaldanaa sababtaa wuxuu dareemay culays aad u badan oo xabadkiisa ah xubnaha jirkiisana waxay tahaayeen kuwo daciif ah kadibna wuxuu maqlay cunugiisa oo qaylinaya tani ma ahayn waxaan rabay inuu dhinto kadibna ninkii dharka madoobaayay wuxuu ku yiri awoodda jirkiisa ku jirto waxay mid aad u badan intaan kaliya ayaan qaban karaa mamlakad dhan ayuu haligi karaa ninkan Toshihiro wuxuu isku dayay inuu kaco laakiin wuu awoodi waayay kadibna jirkiisa ayuu eegay wuxuuna arkay si la yaab leh inuu jirkiisa ahaa mid weyn oo wareegsan jirkiisa wuxuu dareemayaa inuu weli gacmihiisa leeyahay laakiin wuxuu ogaa inuu daciif yahay uu saayid u isticmaali karo sixirkiisa wuu ka badbaaday inuu dhinto laakiin sixirkiisa badanaa wuu ku waayay meesha Yahafi ayuu yiri Juro laakiin Akihito seeftiisa ayuu soo qaatay markaasna madaxa ayuu ka jaray sixiroolihii Toshihiro markuu ogaaday inuu saarinta waxba ka qaban karin ayuu si aamusnaan la geeska ugu galgashay sababtoo cunugiisa markii xigta seefta soo ku dhufan doona wuxuu bilaabay inuu iskaniino sababtoo dhaqdhaqaaq kasta wuxuu ka rabtay awood aad u badan maadaama Juro la dilay waxaa laga yaabaa Toshihiro inuu awoodo inuu jirkiisa soo ceshto laakiin maadaama uu meed yahay waxay ku qaadanaysaa muddo badan sida uu sidiisa ugu soo laaban lahaa Toshihiro wuxuu bilaabay inuu wiilkiisa ka dhunto inkastoo la bilaabay si saayid in loo raasho qol kasta waa la galay meel kastana waa laga raashay askartii markaas aad ku xabsanaysay waxay sameeyeen wax walba oo Akihito markaas iyaga ku amriyay Toshihiro way u fududeed inuu dhunto sababtoo jirkiisa ayaa aad u yaraa waxayna u fududeysay taasi inuu weelasha dhexdeeda ama alaabaha gadaasheeda uu ku dhunto mar ayuu muraayada isku arkay wuxuuna gartay doqonkii Juro ahaa inuu markaas isaga dhan u bedelay digsiga cuntada lagu karsho sanad ayaa ka soo wareegay Toshihiro wuxuu ku dhuumanayay weli qasriga dhexdiisa sababtoo muusa ogeen meel kale uu aado wuxuuna arkay markaas wiilkiisa uu noqday xaakim bilaa naxariis wuxuuna markaas mamlakada ku waday mugdi iyo cabsi Toshihiro wuxuu arkay wiilkiisa inuu aroosay laakiin marnaba kumuusa ekeen xaaskiisa wuxuu la seexday dumar badan iyo xataa shaqaalaha qasriga ka shaqeynayay mid kamid ah xataa uur ayay qaaday markaasna si naxariis leh ayaa looga soo tuuray qasriga markii uu ogaaday uurkeeda waxay ahayd 5 sano kadib markii Toshihiro uu maqlay sixiroole u sheegay markaas wiilkiisa inay awoodiisii ay ka kala dhimatay sababtoo wuxuu u isticmaalayay inuu ku sameeyo dahab iyo diamond iyo inuu dadka cabsi markaas ku galiyo wuxuu ka digay markii uu sixirka isaga ka tago in hantidii oo dhan uu ka sameeyay sixirkana ay kulli baabi'i doonaan rajada kaliya uu leeyahay waxay tahay in ilmihiisa mid kamid ah uu markaas dilo ilmahaasi iyada ama isaga waxay lahaan doonaan awood aad u badan markaas wuxuu baahan inuu dilo si awooddaas isaga u qaato Akihito markaas walwal badan ayaa qabtay xaaskiisii way u dhashay caruur laakiin mid walba markuu dhashay buu dhimanay markaas wuxuu go'aansaday inuu xaaskiisa dilo kadibna mid kale ayuu aroosay midii kale aroosay caruur dhanba ma aysan dhalin markaas Akihito wuxuu go'aansaday inuu ilmo sameeyo asagoo sixirkiisa isticmaalayo laakiin sixiroolihii wuxuu ka digay inuu taasi ay sameyn karin sababtoo ilmo waxa uu ku dhalan karaa oo kaliya si caadi ah Akihito wuxuu bilaabay inuu xanaaqo mar kale ayuuna haddana aroosay laakiin markaan ilmi uu dhashay balse ilmahaas awood muusa lahayn kadibna xaaskii kalena wuu dilay waqtigiisu u socdaba Akihito dhakhtarkiisa wuxuu u sheegay inuu cudur ku dhacay taasina waxay sababaysaa inuusan dib dambe caruur u dhali karin Toshihiro arrintuu ku farxay sababtoo cunugiisa weli muusan ogaan siduu sixirku u isticmaalayaba inuu jirkiisii baabi'iyay balse mar kale wiilkiisa uu ilaaway inuu ilmo ka dhalay shaqaalihii uu sanado ka hor ka xeeriyay qasriga laakiin Toshihiro muusa ilaawin sidaas darteed 10 sano kadib uu ku dhuumanay qasriga gudaheisa ugu dambe wuxuu go'aansaday inuu ka tago asagoo markaas bilaabay inuu raadiyo ilmihii uu ilaaway wiilkiisa